Hilbaha indhaha nooca loo yaqaan ptergium waa xaalad ku dhaca xuubka sare qaybta cad ee indhaha ee loo yaqaan sclera. Ptergium-ka waxaa laga yaabaa inuu hal il ku dhaco ama labada indho, wuxuuna u samaysan yahay sida saddex geesood oo kalarkiisa casaan xigeen yahay, wuxuuna kasoo bilaabanayaa qaybta cad ee indhaha asigoo ku faafaya indhaha qaybta madow ee loo yaqaano cornea. Waxyaabaha sababa ayaa si cad loo garanaynin, laakiinse inta badan dadka cadceedda hoos jooga oo si toos ah ugu dhaceyso ayay u badan tahay inuu ku dhaco, sida dadka beeraleyda ah, kalluumeysatada, iyo dadka ku nool geographic ahaan equator line-ka. Sidoo kalena waxaa sababa waxa la xiriira genetic ahaan oo qofka uu ka qaadi karo. Calaamadaha lagu garan karo ayaa ah inuu qofka xanuun uusan la socon, balse casaan laga yaabo inuu yeesho oo weliba xididdada ku dhex jiro. Ptergium-ka ayaa laga yaabaa in qofka uu keeno xaalado sida hur, cuncun, gaduud ama casaan, ilmeyn, inay wax ku jiraan indhihiisa inuu dareemo, ama xaalad indhaha aragga ku dhaco yiraahdo astigmatism oo aad u sareysa. Haddii uu weynaadana uu qofka araggiisa wax saameyn karo. Qaababka loo baaro ayaa sidoo kale si caadi ah dhakhtarka u garan karaa oo baaritaan aad u xeel dheer uma baahno. Qaabka loo daaweeyo ayaa ku xiran inta uu la eg yahay cudurkani ama hilibka inta uu la eg yahay. Haddii uu fudud yahay wuxuu u baahanayaa oo keliya goojooyin, sida goojooyinka loo yaqaano steroids-ka oo bararka markaa lagu yareynayo. Xilliga ay daaweynta socotana waxaa waajib ah in dhakhtarka indhaha uu la socdo xaaladiisa. Xaaladaha aadka u faafideedu u sareeyo ptergium-ka xawaareeda ayaa aragga qalqal weyn ku abuuri karo oo wuxuu gaari karaa qaybta madow ee indhaha. Xaaladaas ayaa loo baahan yahay in qaliin looga qaado ptergium-ka. Intaan qaliinka lagu sameyn ka horna waxaa meesha ka marnayn in bukaanka loo sharaxo in ay suurtagal noqon karto inuu ku soo laabto ptergium-ka asigoo weliba xawaare aad u sareeyo ku socdo. Waxaa xigo qaliinka kadib in goojooyin antibiyootiga steroids loo qoro oo lagu kontaroolayo. Haddii uu gaaro qaybta madow ee indhaha ee loo yaqaano cornea-na, waxaa loo baahanayaa qaliin la yiraahdo excimer laser oo markaa loogu qaadayo waxyaabaha saameynta uu ku abuuray cornea-ga.